dhalinyarta yareed oo ka shaqaynaysa gobolka oo adiga shaqada kaaga horeeyay haddaad rabto inaad saarto aadna raadinayso kursigii beesha warkaas anigu waa warkii gurigayga iga soo wada saaka waxay isugu yimaadeen dhalinyaradani ka dhiidhinta awood sheegasho iyo dulmi gudoomiye Cali Yare Cali uu u geystay qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir oo uu ka mid yahay Axmed Cumar Diini taas oo la xiriirta kala duwanaanshiyo aragtiyadeed iyo ku qasbida in ay dawladda ku difaacaan barahooda bulshada waxna uga sheegaan si aan gambasho lahayn siyaasiyiinta mucaaradka dawladda ku ah iyo cid kasta oo ka fikir duwan hab maamulka madaxweynaha muddaxileedka uu ka dhamaaday ee Farmaajo muddadii ay socotay Axmed dhibaatooyintiis muddo waxaan u maleynayaa bil iyo 12 bari kan ka yareen ayaan si shakhsiya oo hay'adaha dawladda maadaama aan ka tirsannahay waxaan ka shaqeynaynaa in la hor istaago kiiskan dhibaatooyintiis geed gaaban through the system waxaan hor istaagnay in la joojiyo ilaahay maadiis oo ku guulaysan ilaa xad meel fiican keen laakiin على أنت بحيو عمر فين شو تقول جندها قبسوري أمانة حلك إسكع عسلة أما عمر ونو شغلة كتجا هذيك لا أحمد عمر ونو شغلة كتجا أكحوا ما يركنوا كل عواي إنه ظلم الدفاع لكن وحوا قلادي إن محل أحمد عمر ومحوها شيء ماشي لقى سهل ما أنت وحكيني كرملها إن الشغل كبدلتان سمعت ديني دنودين ما أنت سيدي هذا ولكن يكون كلام دبرن كل جيسنا معه يعني ليدين شيء نكانوا مدحوا وياي لكن ضد كبهدان وشغلان لقى إريه ضد يرما وضد بدن وزارة لقى إريه قبل لقى إريه ميل والبوحل وقاعد إني سمثلات دبا كل عين والله بالغيستي هذا مغلي جتين وأنت كنت إدين شيء ما يرددكم لكن نكانوا هجاميه ذي وهاي حقوقه ذي نكو والله وهاي ما أنا كل جسمهم علي يرى علي oo aan la gamban siyaasadiisa taban ayaa markan sida ay sheegeen dhalinyarada ku heybta ah inta uu shaqada ka joojiyay maahane kuwa kale waxa ay walwal ka qabaan waxa u dambeyn doona mustaqbalkooda shaqo haddii ay sii socdaan qaadashada amarada isdaba joogga ah ee ku dhisan aragtida qofeed ee aan waafaqsanayn hanaanka dawladeed kana baxsan xuquuqda muwaadinka intaas kadib kulanka dhalinyaradan war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa lagu faahfaahiyay ujeedada kulanka baaqna u direen xildhibaanada matalaadooda ku fadhiya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah mudane Maxamed Xuseen Rooble waxaan halkan ka soo jeedinaynaa war-saxaafadeed ku aadan dhibaato iyo awood sheegasho ay tabanayaan dhalinyarada Habargadir maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan matalaha kursiga guddoonka sare ee beesha gudoomiye Cali Cabdi Wardheere tashi iyo isxog wareysi dheer kadib waxaan go'aansanaynaa in cabashadeena aan cod dheer ku sheegno fagaare ay ku wada dhan yihiin dhalinyarta beelweynta Habargadir taas oo aan rabno inaan ka dhiidhino tacadiyada iyo awood sheegashada uu ku wado gudoomiye Cali Cabdi Wardheere waxaan jeclayn in aan tabashadan banaanka aysan u soo bixin oo aan si hoose iyo dhexdhexaadnimo aan u xalino balse gudoomiye Cali Yare taana lama gudoomin ee wuxuu si bareer ah shaqadiisa uga ceyriyay ugana ruqsiyeeyay Axmed Cumar Diini iyo dhalinyaro kale oo gaaraya ilaa 5 qofood gudoomiye Cali Cabdi Wardheere sida uu xulku u qabtay wuxuu beegsaday qof kasta oo kamid ah shaqaalaha gobolka Banaadir ee ku abtirsada beelweynta Habargadir oo ka aragti duwanaada isagoo ku qasbaya inuu aragtidiisa la qaato si qasab ah oo aan dhaqan mas'uul ku haboon ahayn haddana uusan ka mudnayn dadka uu matalayay sidaa daraadeed waxaan soo saarnay qodobadan oo isugu jira baaq iyo cabasho ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxaan ugu baaqaynaa inuu soo farageliyo arrinkan sidoo uu joojin lahaa tacadiyada iyo argoosiga uu gudoomiye Cali Yare ku hayo shaqaalaha gobolka Banaadir iyo laamaha kale ee dawladda sababta uu u beegsanaya ay tahayna inaysan ku aragti ahayn xildhibaanada Habargadir waxaan ugu baaqayaa inay ogaadaan dadka ay matalayaan in gudoomiye Cali Yare Cali uu ku haayo beegsi sharci darro ah ayna muhiim u tahay inay soo farageliyaan maadaama dhalinta la dhibaateeyay iyo kuwa hadda la dhibaateyn rabo ay aad matashaan kana soo baxdaan kaalintii matalaadeed ee la idin igmaday muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii badanayay cabashada qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka oo qaarkood sidaan oo kale shaqadoodii sifa sharci darro ah looga ceeriyay
islamarkaana hadda ay sii badanayaan walwalka kuwa kale ee hadda shaqeeya maadaama shaqaalaha gobolka aysan ka mid ahayn shaqaalaha rayidka dowladda oo xuquuqdooda qof ama wasiir ama madax kaleba aysan ku xadgudbi karin.